أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إيمان كان وسقو وحنا لكن كسلام يا أمة الصومالية دولن سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كلو سيجار والسلام يا إن شاء الله تعالى وحن كلو سيجار والسلام يا كوحدين تيم كم من مقرن وأيوه رئيس قدومية جي وأي هالجمياش بودر يشنتلمان أي كسي حجان ومحمد صومالي يو عبد الوهاب شيل يو أن لوكال هرين وسهر قرن أي كشرتو ومسو كوا بكرو basically من مقرن قف كستو وتاجن قرن مدى الصومالية أيان سقاس وسلامية إلهي لما يلتوكتين بهذا حفديو dadaalkana ilaahay naguma qadin doona insha Allah ta'ala iyo umada Soomaaliyeed kuwa naga lunsan ilaahay noo soo hanuuni rabbi wada noo soo hanuunin kara noo soo hanuuni waxyaabaha halkan maanta aan u gal waxa ugu daran waxaan arkay dhalinyaro u shaqeeyo kale mucaaradka hayr gareysto u shaqeeyaan iimaanka horta Allah ku soo cishay dhalinyaradaas halkii qof dhowr magac buu ku soo galaya dhowr nooc buu iska soo dhigaya asaga waa isbadinayla mucaaradku hadda waa iska dhamaada qabyaalad waa dhamaatay ayagoo markaa doonay inay awrka ku kiciyaan qabyaalad oo hawiye idaarood iyo xamar ee ninkii dhoofku yimid baa geedu dhibaysaa iyo horta waxaan codsanayaa heesaha qaranka in laga joojiyo aan loo isticmaalin qabiilka ciwaankaygan way ku xusan tahay waxaan idinka codsanaynaa qolooyinka mucaaradka u shaqeeyo maanooyin heesa qabiilka soo alifta mu'alifiin iyo dad raadsada laakiin heesihii qaranka ha ku dabaqinina qabyaalada iyo qabiilada qabiil iyo qaran isma qaadan karaan wax isu qalmo ma ahan isku boos ma isma leeka marka heesii qaranka oo aad qabyaalada u isticmaalaysaan horta joojiya meeshan halka waxaan ku haray idaarood iyo hawiye idaarood iyo soo noqday iyo hawiya soo noqday waxa waxba kama jiraan sheega filimkaas waa filim qarxay wuxuuna waxa fiican haduu filimku qarxo oo la wada ogaado oo fashilmo inaad macnaha khidad kale iyo taatika kale inaad raadisaan baa la qaatay laakiin aad halka ku rafataan oo islaamaha yarko madaxa looga jira aad soo aruursataan oo ceeb cad kaadsan markaad weydaan aad madaxa dhulka la dhacdaan oo sabri weydaan waa wax laga fiican yahay in la sabraa fiican in laga guuleysan karo inaad guuleysan karto horta labadaba ogow wargay guushan haystanay hadda tiraahdo maraan si xun baad uga tagi si xun oo saxariir loo farxuma baad uga tagi doontaan sababta binaadamku waa inuu carada indheeya xaaladda fiirshaa haddii uu arko macnaha xaaladda uu meesha wax ku kacsan jiray iyo ku awrkasan jiray in laga gudbay xal kalena uusan markaa haynin waa inuu iska tagaa oo macna gif ab sameeya laakiin hadda iska rafato meel xun baad ku nafbixi goor barqadii ah oo ummadan ku sheegto oo ceeb ah yaad ku dhimanaysaan xishooda oo dhalinyaro aad u dhasheen iyo ilmihiina yarka u naxa oo waxaad u naxdaan maxay tahay awlaadiina oo waxaad u dhaxdaa eheladiina sideen maxay ahayto aad doonaysaan ilmihiina iyo noloshiina ilmihiina iyo ehelkiina iyo inay bulshada ula farxaan farxadda uga qayb qaataan haddaad waxun u shaqayseen oo waxun maartay dhaxal uga dhigteen oo baraha bulshada adaan waagi hore wuxuu qofku dambi gala waaba dhaqsaa lagu iloobi jiray hadda meel bay ku kaydsan tahay waxyaabii hadda dabcasar ay maamulka maartay Muuse Biixi maadirka uu lagu jirdilay waxa sabab ahayd wuxuu markaa geystay ma ahayn waa hadal xumo ka tagtay mar hore way ka kaydsanayday caruurtii culaada lagu barbaariyo Soomaaliland oo madaxa ka jiran baa soo qoftay wixii elektroonigiina waa yaqaanaan wixii hadda baaba laga dhigay ducadii iyo amaantii Puntland macnaha Soomaaliland ku hayay hal baad lagu lisbayno ay noqoto waagi hor aydi ka tabtay yu ku naf waay gaaro naftiisa halis ku gashay waad ogtiin marka sidaa daraadeed dhalinyarada mucaaradka ay irsaaqadiina ilaahay baa qoray nimankan ka daba hara oo lafihiina iyo baritooda meelaad istaagtaan yaa laydinku maadaysan oo liyaan laydin takoorin oo wax takooran yeena noqonine nimankan isaga haro dhuunta magaciina kala dhuunta ba ha u shaqaynina ka hara ilaahay baa idin irsaaqay dawladdiina shaqo idin raadinaysay soo qorta application ka shaqo waa helaysaan maalgelin iyo meel walba iyo mashruuc baa laydin abuurayaa alliina duu alaya nimankan ka daba hara marka qaabiyaalada daarood iyo waa hore ay baa cunay waa dhamaatay xaraash qaran daarood iyo hawiye waa u dhayahay al-shabaab cid walba waa u dhantahay kuwa dawladda dhisaya cid walba u dhintay meel lagu kala maqla waa la isku milmay saddex group baana loo kala baxay laba group baa marka hadda waxay doonaysaa hal group inay maaragtay majaxaabiso labada group waa group kan maxay ahayd xaraash qaran
oo awal damal jidid la shaqaysanayay oo al-shabaab la shaqaysanayay oo hadda maaragtay doonay inay maaragtay isu makaabsadaan si ay dowladda u mujaxaabiyaan sheekadaasna waa sheeko anigu aan ka dhalisanaa marka shacab ahaan oo waliba qaasatan ka dhalinyaro ahaan waa mas-uuliyad u taala dhalinyarada iyo shacabka siday shacab uga hortagi lahaayeen oo isaga qaban lahaayeen maafiyadan isgarabsanaysa hadda saaxiib ayaguna ma ahan ogow bari waa isdilahayaan laakiin hadda tanay isu makaabsanayaan maxkamadihii bay wada joogaan dowladdiiba xildhibaanadii bay ku jiraan dowladdii baa dhan bay ku jiraan ciidamadii bay ku jiraan haye see la yeelaya kii la soo qabtoo dambiilaana tolbeelay waa reer hebel haddaan shacab nahay oo meesha aan magac kale u bixino aysan lahayn oo ay dadkaasi aysan mudnayn annagu haddaan siina ka warrama soo annaga maaha waxa marka aqoon isku dhufte asaga u dhufte waxay ku dhacayso soo shacabka Soomaaliyeed maaha ilma dareer lafad dareer ahaan maanta ku arkay Facebooka nafaqa darro iyo cudur hadisheen dowlad u adeegaysa male ninka hadlahayo dadka inuu u xigaa laga yaabaa oo dowladda hadda ma jaxaabinayo dowlad la'aanta ka soo horjeeda baa laga yaabaa ilmahaas inuu dadka u xigo iyo dadka taa u dhibaataysan ma fiirinayo because waxa ku cad inuusan qabiil danka ma laha qabiilku waa furo shaydaan oo la adeegsado waa shaydaan muftax shaydaan weey shaydaanima loo adeegsadaa wax wanaaga looma adeegsado wax wanaagana maba soo hooyaba sida ogtiin wali qabiil wanaag soo hooyo lama hayo marka dadka rafaraya waa dadkii al-shabaab u shaqaynayay iyo dadkii maaragtay xaraash qaran groupkoodii marka waa inay shacabku fahmaan waa inay iska kaashadaan waa inay qabyaalad loogu soo gaban hooyada hadday dhasho hore ii dhaafdha al-shabaab hadduu yahana naxariis kuu geli maayo waad og tahay xaraash qaran asxaabkuusa bay aduba ku xaraashayaaba sababtoo ah hadda waa qof aan dalkiisa iyo dadkiisa ka naxayn qofkaasoo kalena layskuma hadlaya qabiilna kulamaha ogaada dhalinyaroy yaan jeebka laydinku ridanin kuwa maaragtay xoogaa leefleefka ku haysto dadnimadiina hagadanina xilligii laga baxay waa laga baxay waxaas nimcadii iyo wanaaggii baa dhow samra oo dowladdiina garab istaaga tuugtana ka daba hara aad qoryaha aad u haysaan oo maalin walba bilaa macnaha ugu dhimanaysaan ilaahay xaggiisana cajar kuma lihidin adduunyadana magac ugumaynaa tagan maxaa ku falaysaan marka maxaa idan daba dhigay xoolahaad shaqaysay waxaaba laga adoon cuninba inaad ka dhimatay maxaad marka ka faa'iideen war si sharafa ku noolaada oo ka nimanaya isagoo ciidan oo dowladdiisa iyo dadkiisa difaacaya ha dhinto oo xaqa ku dhinto oo magaciisa berito leh qof la xusa ha noqdo oo caruurtiisa qof maaragtay damaanad uga taga oo maaragtay wuxuu isagoo nool qaadan jiray cunugiisa isagoo dhintay cunugiisa la siinaya ama waalidkiisa la siinaya ha noqdo oo wax ka tagan kara maxaad ku dhimanteen markaad mooryaan daba gashaan oo xaraash qaran aad daba gashaan oo maaragtay al-shabaab aad raacdaan maxaa ka dheefaysaan al-shabaabkan waxa lagu guray oo janna tagaysaan ilaa yaa saaka maanta ka soo warrama ku dhintay yaa rabbi oo ka soo warrama waxa bini aadanka naqaribayba wixii ilaahay waa naga qariyay haddaan ogaan lahayn waxay muteen banaanka la mari lahaa waa la biqi lahaa laakiin ogaansho la'aan baa keentay laakiin waa wax la dareemi karo qof islaam gubaya ummad islaam baabiinaya gubaya baan janna ku tagay inaysan janna lagu tagayn durwaaga mudug jooga horta taas runta marka laga hadlo aqliga saliimka baa sheegayo dadkan waa waxaan aaminsan dad la daroogeeyay inay yihiin dad la daroogeeyay oo maskaxda laga daroogeeyay weey marka sidaa daraaddeed dhalinyarada baraha bulshada ku jirtaan aad ugu digayaa oo tobanka magac maaragtay iyo 10 profile saaratay oo maxay ta qabiilka iyo digdigta meesha la maraysa qabiil waa dhamaaday xal kale hadaad haysaan nimayow keena nimanka ku laabta aad u shaqaysaan ku laabta weydiiya wax kale lagu dagaalgal qabiil dhamaaye koox walba waa u dhantahay qabiil Soomaaliya dhan baa koox walba u dhan marka dalkan qarannimadiisa sidii loo difaacan lahaa waa shacabka iyo dhalinyarada hawl u taala nimankaana uma taalo dowladana iyadu dadaalkeedii waa wadaa qaybteedii waa haysaa laakiin waxaa laga rabaa qaybtii shacabka culumadana waa sidoo kale culumadu waana dadaaleen dadaalkoodana hal sii laba jibaareen dadka culumada marka u bootaynayaa ku soo hartay walaal anaga naga fadwoodan dowladdu culumada waxay ka fadwootay oo ay sheegeen qaran dumiska waajibaadka waxa waajibka ku ah iyo wuxuu xaq u leeyahay wax xaq loogu leeyahay iyo cinqaabtiisa waxay tahay marka adigu hadaad ku soo dhacday shabaqi macna qaran dumiska hadaad ku soo dhacday fadwadii haday ku qabatay muqarraraysa marka waa ila waa fadwadii baa ku qabatay maxaa umada ka soo dhex saaray fadwadii baan qabatay xaraash qadan fadwada waa qabanaysa waana idahaysa marab ka baxsanaysan insha Allah marka waa tooba keenay iyo waraalahna laga ahaado qaranka umada hana cafiso miyaa laydan ka hayaa horta ilaa dadku damb waa dambaaba waa sax
binaadalona waa dambaabaya waa la khaldamaya laakiin kii ilaahay wuxuu umadiisa kii khaldamay kana soo noqdo ugu jecel yahay dad diyaar u ah oo in laydan fahmay oo xaraas oo mag Soomaaliya dhanba aad ka gasheen oo aad qarankeedii baxar galiseen oo maanta dhulkeedii lagu soo durkayo si badii aad bixiseen loo xalaalaysto halkaasay maanta taagantahay dadka dambiga inta la eg galay baa tihiin ma oranaysaan war hal hana laga ahaado binaadan baana waa khaldanay ummadda Soomaaliyeed hana cafiso hadda laga bilaabana wax alla wixii maarata wanaag ayaan ka shaqeynayna oran maysaan wali waa soo taagantiin waxa idinku jirta hayo wali idinka adkaan hadda isugu taga inta goorta in la socdo isbiid lagu socdana waad aragtaan lama soo noqonayo dawladana waxaan ka codsanaynaa dadkan hadday tabar u weydo gabigeedaba nimankan yiraahdo Turkiga gacanta ka saarto wadanka hanoo difaacaan waa ku weysaan u galay waa inqaabka iyaga loo dhigay tabti oo kale ha u galaan fadlan wal ihsaan dawladda waxaan ka codsanaynaa wixii awoodeeda ka bata inay la kaashato fasax bayna u yihiin dawladaha Turkiga oo kale iyo dawladaha Mareykanka oo kale especially Turkiga inay la kaashato dalkana ay noo qabtaan sababtoo waxaan kuma jiri karo maxaa yeelay way qodxa tira badan baa dawladda ku meersan oo hoos yaalo oo dhinac yaalo oo waxa weeye dawladii hore iyo wixii meesha ka shaqeynaya dhan baa dad xanuunsan waa al-shabaab iyo macna iyo damal jadid oo xaraas qaran ah waxaasan wax yaalo meeshii marka ama shacabku iyo dawladda ha garab istaagen dawladda haddaad garata istiraahadaan alla ilaahay waad garab baad u baahantiin marka annaga idin fasaxnay Turkiga iyo ummad kale iyo wax kumaan dooso cirka uga soo dago jaada ku rasheeya wixii baaqiga noo hara habaxsadeen baa noo dalba alliina duu alla yahay noo dalba fasax baanad ku tihiin waxba ha ilaalinina sababtoo waxaan ilaalin ma galaan shacabku habaday bisil yihiin ha iska qabteen dadka shacabka ku filan shacabku haday qaban waayaan dawladda cid kasto qaban karto nagu fasax raalli baan ku dhahay diyaaradaha iyo miigaga ugu dambeeya dusheena laga soo dejiyo sababtoo ah waxaan noqonaynaa dad aan macnaha dawladnimo doonaynin dadkiina iyo dawladda u baahnaan oo danyarta ahna waa baabi'een gaajo iyo cudur baa dishay waxbarasho la'aan baa dilatay tahriib baa dishay magafa baabi'iyay xabasyaday ku ureen dad marka yar oo kooban oo tuuga ah oo macnaha bilalaqa qaatay oo madaxyaalo oo shisheeyo u adeegahaya oo caqiido xun qaar lagu shubay annaga ummadda yaan dalka loo baabi'in dawlad yahay dalka ha u baabi'inina dadkaas wax kasta oo adeegsan kartaan oo dadkaas u qaban kartaan shacabka Soomaaliyeed adeegsada alliina duu allaha adeegsada dawladda fartiintan iyada halka u marinaya kuwa marka baraha bulshada ku meereysanayo islaamaha xanuunsan maratay meelaha ka soo qabanayo markay cilad kala waayeen tanazula ilaahay darti u tanazula dadkiina u tanazula magciina u tanazula caruurtiina u tanazula mustaqbalkiina u tanazula anu intaas idin leeyahay sababtoo ah way iska dhamaanaysaa waxana way iska dhamaanaysaa baraha bulshadana waxa galaahay maba dhamaadan waa recording way qof walba recordkaaga ilaalso allah duu alla recordkaaga ilaalso waxaan bilaa macnaa iyo qadab maalin ah iyo degdeg aan sii soconayn haw noloshaada mustaqbalkaaga iyo recordkaaga ha u xumayn madaxda bariti baad dhalinyarada madaxdii barito idinka weeye marka dhalinyarada kale oo wanaagsan oo maartay wadaniyiinta oo xalaasha oo Soomaali qoys walba ku jira ha ku daba dhagaan waa ku celcelinayay nimanka baarlamaanka ugu jira qolo walbay dabada qabso la xisaabtan wax qarannimadiina iyo dawladnimadiina wax u dhimaayay kii watana ka tuura meesha odayga iyo waxa u saxiixana dhagta ku soo dhaga iska celiya dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay la xisaabtamaan qolooyinka baarlamaanka ugu jira waxaan ku boorinayaa inay macnaha ku daba dhagaan inay la xisaabtamaan inaan magacooda qarankooda danahooda lagu burburin cid asxaan u galaysa male mooshin baa loo soo galay guriya qabiyo u ah dirim bay ku fulinayaan meesha dirim waxa la rabaa dawlad corruption ah oo maxay to ay kala hoofaan oo waalba mooshin keenaan oo maalinba 50,000 iyo 60,000 iyo 100,000 ay ku gorgortamaan bay doonayaan ra'iisul baarlamaanka oo ugu weyn fidna cindigal anu saan aaminsanay waa problem number 1 weeye waana mucaarad number 1 marka waxaan ka codsanayaa bulshada iyo dhalinyarada reer maxay to Soomaali galbeed oo reer Baydhabo iyo inay iska qabtaan inay la xisaabtamaan wixii gorgortankii madaxweynaha iyo u dhaxeeyay xildhibaanada iyo maalinba uu meel ka casheynaya haduu waayay dalkiisan cimrina uu ku jiro maanta meeshii ugu dambeysay waxba uma dhimana nafta ka dhacda u dhiman wax kale u dhiman male adduunyo hore iyo mid aakhira waa soo joogay ma isagoo cimrigaas maanta Soomaaliya heerka gaadhay
oo dhibaatada inta laga ay ku habsatay haddii wala gorgortan iyo maaragtay aniga demanding uu wado aniga hebel wasiir hal iga dhig hadii laga waayo waa qasahaya ama maaragtay no taas waa khalad qof walba wali waxaad ujeedaan dangaar inay wada wataan dangaaro yar oo kooban inay dalka iyo dadka u baabiinay maatadana aysan ka naxayn ku xabsi jirana aysan soo daynayn ku bad ku dhintana aysan dan kala hayn ku magafa haysa aysan dan kala hayn hooga ku macluul meesha ugu bacayo barakacayna aysan dan kala hayn heeda yaa idin cad aqliga Allah nagama qaado inaad fakirtaan baa loo baahan yahay ninna iyo awrka idinku kacsan Soomaaliya meel adag bay ku dhacday caawinaad iyo dawlad bay u baahan tahay gacanta qabata oo aad u dadaasha waanad haysaan maanta waa haysaantaas ilaahay gacantiinu soo galiyay fursadan ilaahay waa idin siiyay ilaahay naxariistiisu waa badan tahay midna shaqaysan laakiin ilaahay waa badan tahay maalin walba mid qabri ku jira iyo mid waa hore dhintay ku meeraysta ree hebel baa saa yeelay iyo hebel baa saa yeelay hebel ku daa haduu si yeelay adigu si yeelay hebel ku daaye sidoo yeelayna la tagiye adigu hadda si yeelay marka Soomaalida horta qabyaalada iyo waagi siyaad baraha saa la yeelay ku hayaan horta la yaabanaanu war siyaad bara dawlad fakashi garanayso oo nool oo caafimaad qabto oo ummadii shacabkeeda uu damaanad qaaday ayuu ka tagay oo nal haysato oo biyo haysato oo waxbarasho haysato oo caafimaad haysato oo cadawgeeda uu saa u soo fiirin karin buu ka tagay maxaa loogu bedelay talbeelay ree hebel qabtay maxay dhashay ree hebel aan Soomaali ahayn oo aatiin ma jirto wallahi baan ku dhaartay wax ka sokeynayso jirin faa'iidina kumana ina gaarin kumana gaari doontaan qabiil hadaa leedin waa Soomaali hadduu halka hoos u dhaafan iska ilooba waa mid baaba idin kugu waa midkii baa idin baabiyay waa midka ma dhamaatada ah oday ku ciraystay marka ree hebel iska celiya iyo maartay sida la isaga caabiyo iyo igu shiba aan ku sheegay oo aan wax kale oo dignity kale ay ku jirin hakum oday ka dhiganina duubniyo idin ahaanin dhalinyarada waliba la hadlaya naftiina u bax dadkan way socdeen odayaasha qaar fiican baa ku jira baarlamaanka qaar wanaagsan baa ku jira laakiin xuntu waa badan tahay hadda idin sheegay xuntu waa badan tahay iyadoo hadba shaati cusub soo gashanaysa badan tahay marka hungurina meel xun laga ma doonee kuwa dhaqankooda iyo waliba kuwa baarlamaanko hunguri meel xun aad ka doontaa waxa la yiraahdaa hunguri wax ka weyn la mariyaa horta waa dilaaca meel xun waxaad ka doontaan hadda waad ku dhimataa masiixun baad u dhimataa marka dambe kitaab ilaahay baad dad u marteen musuq maas qorteen inaad ku timaadeen waan ogeyn at least waad ku timaadeen hadda istoosiya qof walba shuruucda lagu leeyahay iyo shuruucda baarlamaanka iyo sharciga waxa uu qabo horta iyo mas'uuliyadiisa iyo responsibilitygiisa iyo rightskiisa horta ha barto ha ku mashquulo intuu mooshin baa keenayna iyo maasiix iyo meeqal isiina ku mashquul lahaydeen oo qarankiina iyo caruurtiina iyo noloshiina aad cuni lahaydeen oo dhashiina duban lahaydeen at least wax barta aqoon badan oo qaar badan aan ku lahayn aqoon ahan qualified ahayn baa ku jira oo hebel iyo laaluus ku yimid laakiin aqoontu waad baran kartaa haddaad focus garayso buuga dib ugu laabato shuruucda waxa lagu leeyahay waxa xaq u leedahay aad barato daacadna aad dalkaaga u noqoto waxbaad ka keeni kartaa intaad marka waxan ku mashquul lahaydeen ku mashquul inaad shuruucdii la idmaday oo aad mas'uuliyadda kala haydeen oo dalkan aad u hayseen horta taas ku mashquul inaad barataan oo fahamtaan oo aad baas garaysaan waxyaabaha la idinkaga baahan yahay oo xayiran oo faylka hortiina iyo xafiiskiina yaala ku mashquula taas idin hudhane dhalinyaradana waa ka xoroobeen qabiil xagga hal iska dhigo la isbaray qabiil isdaayay ma jiro daalo iscun hawiya iscun isaaq iscun wax Soomaali isugu harsan ma jiraan wallahi wax damba isugu harsan jirin ninka ku fakarayeen waa mid masiibo iyo naar la maagay laakiin qof kale wallahi ku fakarayo damiir la inuu soo jirin markuu wax fiiriyo picture ka fiiriyo oo fiiriyo daarad ba isla lahaysay shalay iscunayeen saawiyaan isla lahaysay tii dagad ba isku dhigeen saa isaaq labada daamood ba la isuba gala ka dhacday war waxa qabiil waa intaas iska ilooba qabiil ma jiro Soomaali qabiil ka sokeeya ma jiro taa marka barta qabiilka aad leedahay haddaad adigu baran weydo oo meel kale abraarayso daadaa qodxa iyo haadaama ku dhici doono aad ka soo bixin waana midda Soomaali ku riday sababta waxay yihiin bay ka fogaadeen ilaahay bay maca diintiisa ka fogaadeen wa cara ilaahay baa ku dhacday sababta qabiilka ilaahay isku aqoonsadu yiri isku dila ma oran isku xaq dareysta ma oran isku qabyaaladeeya ma oran ilaahay ma dhihin waxa marka daba martana jawaabteeda waad helaysaa marka waa la daba maray jawaabteedina inta la helay oo waliba laga dhargay waa la daacay si kale kuma garatid halka dhuunta bay na timid marka midda qolo kale ay ku oran kaarayo ka bada hadana wax aqli gala ma aha space lagu mariyo aan lagu ka bado ama caloosh uga banaanba ma jiro way buuxsantay isdaan qabiil waa isdaan
qabiilkeena adduunka meesha tagto Ethiopia noogu sokaysa Kenya noogu sokaysa meesha tagto Soomaali baa tahay no matter what Somaliland baan ahay Maryam baan ka imid Fruud maayanka nobody cares Somali wixii marka lagu kala laaluushi karo oo siyaasadooda inta la bartay iyo meesha ka jilicsan yihiin iyo meesha maartay xabadu maartay loo ay uga jilicsan yihiin marka la idin bartay ayaa horta la idin kala siyaasiyiintina loo kala yeeraya laakiin wallahi baan ku dhaartay inaan la idin kala jeclayn oo billahi baan ku dhaartay isku mid ba ka tiin marka kana waa la hubaynaya idinku baa la isku kimbaabiinaya dhulkaana aakhirka waxa loo dictionary waxa looga dhigay baan u malaynaya nimanka oromada la rabo in lagu soo riixo dhulka tirada ka batay oo aan dhul haysan khayraadna dad yar oo dhul weyn oo khayraad haysta yaa ilaahay naga dhigay haddana ma aragno ilaahay caradiisa ilaahu naga dulqaad caradaada rabbi adaa awood leh ilaahu naga dulqaad annaga isu jeedna jaraf wax aan macna sameeyeen baa isku haysanaa ummadda ilaahay su'aal hadii nala weydiyo ana ka jawaabi karin baan isku haysanaa wallahi ana jawaab haynin habba ka yaabin si kasta daa yeelo jawaab ma keeni karo nala weydiyo marka iimaanka allah nagu sugo ummadda Soomaaliyeed especially qaasatan dhalinyarada waxaan ku boorinayaa kuwa baraha bulshada ku jira oo 10 magac profile samaystay oo mucaaradka ah oo hawiye iyo daarood iyo maryan iyo cali ba isdilaayo ku hayo waxba kama jiraan gurigeena dib u ceshta lafihiina u baqa is ilaaliya magaciina ilaalsada siyaasi burcada oo wuxuu ka naxaa jirin oo shalana ku aqoon barina ku aqoon doonin bari damar ku aqoon doonin shalana aan ku aqoon ku mashquulin waqtina iyo kaalumin irsaaqad doono dalkaaga 20 jir baa ta cid kaama xigto ka xoogso wadankaaga ku shaqaad ka helaysaa oo nin aad u shaqaynaysid oo mucaarado adiga laftigaaga xabada kugu dhufanaya adiga laftigaaga qaranka uu dibna aduu ka duminaya horta cid kale ha u malaynin aduna janno ku jiiraysid qaranku dibna adiga iyo cunugaagu ka duminaya adiga cunugaaga hadaad xuriyay weyna de bahal baatay waxa jira bahal marka ilmaha cunaan bisadaha iyo ay ilmahooda cunaan noocaas aad noqonaysaan oo ilmihiina waad ku noqonaysaan oo waxba u reebi maysaan way macnaheedu marka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba ilaahay iimaanka ha ku sugo dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa meel ay joogaanba gacmaha isku qabsadeen qabiil malahan qabiilkoodu waa Soomaali raas Kamboni iyo raas Casayr meel ay joogaanba gacmaha is qabsadeen dawladooda ha dhisteen cadawga ha u midoobeen cadawga ku diirka oo ku dadka oo guriga la degan oo ina hebel la ah oo aan sa u naxayn oo kan jiricsan u naxaynin oo wax alla wuxuu kan xiran u naxaynin oo badka kan ku dhimanay u naxaynin kaas ha u midoobeen hana ka tashtaano magaciisa janno kuma tagaysid maxaa kaaga jira kaligaa adduunkan adoo qaawan baad dhalatay adoo kalfansitaad ka tagaysaa muxuu ku yahay marka ninka aan waxba ku tirin adduunka muxuu aakhira ku tirin waa maya adduunkan wax kuma tirin aakhirana waxaan cadaab ahayn wallahu ku wadariyo billahi tallaahi sababta dhigso kayu ku galin xaqdar ku galin marka waxaan ka codsanayaa inaad taa fahamtaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel aad joogtaan bayaan leedku xuuxin oo leedku xuuqin talbeelay reer hebel baasay helab waa dambiile wadan kasta xabsiyadiisu waa buuxaan yaa ka buuxa wadani wadanka u dhashay baa ka buuxa siyaasi baa ka buuxa ganacsataa ka buuxa shacab baa ka buuxa why not haduu dambi galo waa la qabanaya waana muhiim in wadanka laga qabto kan dadka u xigaaba waajib ay ku tahay inuu qabto waajib ay ku tahay intuu oran la hebel anaaba ku haya hadho aniga kula dhashay anaana ku haya sababtoo ah waxba ii reebi maysid cunugaygana kama naxaysid anaga ma naxaysid why not noloshaad ii diidan tahay marka wana anna iska ka qabtaa marka taasaaba ku waajibta dad xumaan macnaha u sarifan oo macnaha u wada qabiil xumaan u safan ma jiro isku raacsan ma jiro riyaaladiga marka laga hadlo nimankan xaraash qaranna waliba qaybtaan Cabdishakuur iyo groupka hadda la safanayo laha xamar baa marti lagu yahay wax marti ku ah iyaga marti ku ah galmudug iyo lukaas ka yimaadeen oo waliba marka Cabdishakuur oo meesha xal burabardi ku dhashay laha kuwa kale iyo meel la mid ay ku dhashay ama isku meel bay ku dhashay sababta iyagoo ciyaal isla sawiran waa ark horseeda waa muriya saddexdu waa soo koreen oo saddex soo kortay oo Cabdishakuur iyo fiq iyo mid kale oo hadda meelaha ku wada jira waa asxaab ilaa asxaab dugsi soo aha marka waa asxaab maafiya nimo isku dhaarsatay weeyo oo aqligoodu xataa dadku way kala leexan waayay kaasa madax u ah sida hadda uga dheeryahay xataa markuu yaraan uga dheera baraha bulshada masawirradooda iyagoo yar yaala marka dadka noocaas ah qabiil ma leh waa team ujeed leh xaraash qaran ah oo waxba ka nixin
shisheeyahaas inay u adeegaan habi ku ah aad ugu faraxsan cidna aan u naxaynin marka meel joogtaba dhalinyarada Soomaaliyeed ha iskaashato Soomaaliya iimaanka Allah ku soo cesho dawladdeena waxaan ka codsanaynaa nimanka hadda iska celin weydo Turkiga ku dalbato alleega ya Turkiga iyo Ingiriis iyo Mareykanka waxay ugu yeeraysaa ugu yeertay nimankaas yaa dawladdeena lagu halaynin yaan loo kaadin yaanba loo kaadin baan u qabaa dhagtan hala soo qabto ninka culimada marka fulfulahayay culimadu fadwadii baa ku qabatay ha gariirin ka xaraash qaran iyo qaran dumis oo dhan fadwada culimadu waa qabatay waana ku dhagan tahay fadwada idin qabatay maxaa fadwada ku soo dhastaajiyay maxaa umada ka soo dhaxsaaray fadwa iga fadwooday waa laga fadwooday fadwa umadaas wixii qaran dumis laga fadwooday ma adaa iskeeray albaabka soo istaagayo laamiga soo dhigay ma adaa xarash ku dhagana marka walaal adkaysta culimada iyo shacabka iyo waa wada jir iyo dawladdu waa wada jiraan waana iska kin qabanayaan ama al-shabaab ahaada ama qaran dumis iyo xaraash qaran ahaada waa la soo jooga final haday gaartaan oo naga xog baysaa xitaa waxaan kugu yeeraynaa dawladaha waaweyn I promise dawladana waxaan rajaynayaa inay naga maqasho oo warka maarta ay warkeena aysan dhayalsan marka hadda intaasan caawa ku soo gabagabaynayaa umada meel ay joogtaba iimaanka saadaqa Allah nagu sugo meelahan hadda waa maqlayseen in maarad xuutiyiinta dhaaranayo balaa kalaaba hadda soo socota ilaahu naga qabo tabar uma hayne nimankaan marka maartay maamulkan Soomaaliland ka taliya balaa inuu shacabka Soomaaliyeed u soo hooyaan ka baqayna wallahi billahi tallaah niman wax soo xitay niman ku furdoonin iyo ku rarin ma fahamti niman ku furdoonin wallahi imaarad no furdoonin ay soo rari hadaan raran inay soo furdoonin waa wallahi waana lugoynayaan in laga tashtaana fiican dalkaas dadka islaamka oo dariska oo Yemen ah hadda intaas hadaan ku kala joogna anagaaba taayadina haysataay hargeysada ay burcada yar oo hafarta habeen xogaaga yar lagu hoydan inta in loo qoonsaday ilaa Puntland hadii la rabo waa labada kaliya looga hoyanayo macna nabada yar haysatay macna waxa mar malaynaya waxa la rabaa maartay meesha al-shabaab inuu macna lagu xoojiyo anigu hadaan fakari hadaan arinta laga hortagin wallahi geyga Soomaaliyeed oo dhan al-shabaab baa qabsanay iyo tuuga iyo balaayo kale iyo la garanay waxa kale oo khatar ugu sii jirnaa in fartana lagu fiiqay sidoo Qudus loogu dhawaaqay in la yiraahdo sida Ethiopia hoostaga awal baa muddo laga shaqeynaya hawshaan Allah naga badbaadsho kuwii garta dantoodana Allah naga dhigo kuwii maartay gacmaha isqabsado oo midoobana Allah naga dhigo kuwii qabiilkooda Soomaali uu ku ogyahan Allah naga dhigo iimaanka Allah nagu sugo islaamnimada Allah nagu sugo iimaanka Allah nagu soo cisho waxa naga halaysana Allah noo hagaajiyo kuwa naga duleysana Allah noo soo hanuuniyo sidaas aan idinkaga tagayaa وولاشين هند عبدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.